qarax khasaare geystay ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee guriga uu deganaa taliyaha ciidanka asluubta gobolka Hiiraan Korneyl Faarax Macow oo ku yaala xaafadda Kooshin ee Beledweyne, gaar ahaan dhabarka dambe ee saldhigga booliska Beledweyne. waxaa la xaqiijiyay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 2 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta ee gobolka Hiiraan ku sugan, waxaana dhaawacooda xilligan lagu dabiibayaa gudaha Beledweyne. waxaa goobta qaraxa uu ka dhacay durba gaaray ciidanka amniga, kuwaasi oo rasaas ku kala eriyay qaar ka mid ah dad badan oo ku soo xoomay goobta qaraxa uu ka dhacay si ciidanka amniga ay uga fogaadaan waxyeello kale oo qaraxa oo halka ka dhacda khasaarana uu ka dhasho. waxaana intaa dabadeed ciidanka amniga ay sameeyeen howlgallo. sargaal ka tirsan ciidanka booliska ayaana warbaahinta u xaqiijiyay in 2 ruux lagu soo qabtay howlgal ciidanka ay sameeyeen. toddobaadyadii ugu dambeeyay Beledweyne waxaa ka dhacay dilal qorsheysan, waxaana qaraxan uu ku soo beegmaya xilli dhowaan taliska ciidanka booliska Beledweyne ay sheegeen inay bilaabayaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Maxamed Ibraahim Siyaad.